maxkamadda gobolka Maroodijeex horteeda ayaa maanta lagu soo bandhigay maandooriyaal ay ciidanka booliska Somaliland ay gacanta ku soo dhigeen gaadhigii siday iyo eedeysanayaasha ku hawlana arintaasi iyadoo eedeysanayaashaasina maxkamadda horteeda ay ku dhaceen xukuno kala duwan. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodijeex Axmed Ismaaciil Dalmar ayaa faahfaahin ka bixiyay dambiilayaasha sida ay xukunadu ugu kala dhaceen. waxaan maanta ku soo bandhignay xashiishad lagu qabtay eedeysanayaal kala duwan kana xukumay tirada xashiishada maanta aan gubayno aan baabiinayna tiradeedu waa 120 xabo oo u samaysan nooca mijaha ama nooca qaadka kala samaysan waxa lagu qabtay 27 xabo kamid ah waxa lagu qabtay laba eedeysan oo ku xukumay 5 sano iyo 5 milyan gaarigii sideen waan ganaxnay qiimihiisa markaan eegnay boqolkiiba 5 iyo 9 ganaxnay waxa kale oo ku baabiinna maanta tiro 25 litir oo khamri ah oo iyadana ku qabanay hal eedeysan oo ku xukumay 3 sano iyo 6 milyan waxa kale oo baabiinna xabad iyadana laga ganacsano la shubay oo ku qabanay hal eedeysan isna lagu xukumay 3 sano iyo 3 milyan waxa kale oo iyadana baabiinna 26 xabo وحشيشة والله قبضي قبض مرة ويلا كل حكومة ناس تحسين يستعمل بدون أنا وحليها خمرة يا حشيشة يا حبكت صدق هو أخوه خير بالجيل وروي هذا الشام سادة أنا تكون توبان واحد يكون جليا حرب عقابات جارية شانس مليون وأنا إبلها إنسان حنا العين سادة أنا نفطر ينورش هذا كوين ميرلو يسكينو يا مخدرات gabagabadii waxaa maxkamadda horteeda lagu gubay maandooriyaashii ay ka mid ka ahaayeen khamriga xashiishada xabagta iyadoo arintaasina ay dadweynuhu aad u soo dhaweeyeen waa xabse qurbaani telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland Hargeysa.